بسم الله الرحمن الرحيم halkan ugbad health cooking weeye kusoo dhawaada asxaabta ugbad health cooking inta nala joogto mahadsan yihiin inta cusubna waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada asxaabta ugbad subscribe iyo like share naga qadinina soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo kabuubyada waxaan soo weydiiyay qof kamid ah dadka oo macaamiisha ku xiran ugbad baan soo weydiiyay kabuubyadu waa qodxo jirkaaga mudmudaya ama meel maxaan ku rahdaa aad u malaynaysa in wax kaaga mudmudayaan qofku uusan aad u dareemi karin ama cagaha ama gacmaha meelaha noocaasaba ugu badan faraha gacmaha lugaha intaasay baa hooyada dadka kaga dhacdaa maxayna tahay marka kabuubiyo waa maxay kabuubiyada waxaa keena marka cudurro fara badan haddaad kabuubiyo isku aragti tiro badan ha fududaysan dhakhtar u tag insha allah haddii ilaha idmo waxaa keeni kara xaalado qarsoon oo sida maskaxiyan oo kale ah waxaa kaloo keeni kara xaalado muuqda oo sida maxaan ku rahday jugo iyo wax noocaas oo kugu dhacay oo kale keeni kara waxaa kaloo keeni kara dhiigga oo kala xirmay sida qofka maxaan ku rahdaa inuu in badan fadhiyo oo kale waxaa kaloo keeni kara in jug ama wax kugu dhaceen baa keeni karta oo neerf wax gaaray waxaa kaloo keeni kara pressure ama lugahaaga isdul saarsatay muddo badan aad meel fadhiday baa keeni karta sida inaad muddo taagan tahay inaad muddo meel fadhidid inaad cagaha iskor saarsatid taas oo kale waa normal oo qofka markuu kaco bay ka baaba-aysaa haddii ilaha idmo laakiin kuwa cudurraa baa jira kuwa cudurrada aad iyo aad bay u tiro badan yihiin maxaa kaloo keeni kara inuu dhiigga kala xirmo sida artiriyaasha ama neerfayaasha kuwa dhiigga qaada inay maxaan ku rahdaa ay xirmaan ama ay gasho xinjir ay gasho sida lugta oo kale qofka waxay noqonaysaa qof maxaan ku rahdaa oo uusan qaadi karin wadnaha inay xinjir istaajiso oo kale maxaan ku rahdaa stroke waxaa kala yirahdo dadka ama qaarjeexa xanuunka la yirahdo kusoo booda xaaladaha qabow dhulalka aadka barafka oo iyadana wuu keenaa barafka marka qofka bata farihiisa iyo gacmihiisa ma oga hadday xataa jajabayaan oo ama gaari mararka qaarkood isaga xiro ama meel bir oo kale qabato qofku ma dareemi karo xataa maxaan ku rahdaa iyo xididadii oo ciriiri noqday oo meel ay dhiig ay maraan ay waayaan marka dareenkii baa yaraanaya ama dhiiggii kululeynaya jirkaan gaarayn jir qabo meesha qabow bay noqonaysaa marka sida dadka cholesterolka qabo oo kale waxaa kaloo kamid ah xaaladan la yiraahdo orthopedic ama ku saabsan murqaha iyo lafaha baa keeni kara cudurro ku dhacay baa iyaguna keeni karta sida lafaha ama murqaha oo hadda ka hor wax kaa gaareen baa iyaduna ay keeni karta maxaa kamid ah qofka inuu dhabarka jug ka gaarto oo kale baa kamid ah in maxaan ku rahdaay surka ay jug kaa gaarto in laf inta ku jabto ay neerfa cadaadiso oo kale baa iyaduna kamid ah in riciraha ama waxa kan dhiskiga la dhaho oo dhabarka ay udhexeeya carjawda lafaha dhabarka udhexaysa inay ama meesheeda ka durugto ama ay dhaawac iyo wax kaa gaaraan baa dhici karta in neerfa pressure kaa saareen sida dhiskigaas oo kale ama meesha yarkaa oo la yirahdo carjawda udhexaysa lafaha dhabarka inuu neerfaha uu cadaadiyo cadaadis uu saaran yahay baa keeni kara kabuubyadaas baa keeni karta waxaa kaloo kamid ah qayb oo neerfaha la xiriirta ama neurologicalka qayb kamida baa keeni karta maxaa kamid ah hadda waxaan sheegaynoo kale inuu neerfuhu uu si caadi ku dhaawacan yahay in qof alcohol fara badan uu cabiya dadka alcoholada caba iyagana waxaa ku dhaca dareen la-aan sababto ah neerfayaashiibaa daciifaya waxaa kaloo kamid ah qofka in maskaxda ay bura kasoo baxda brain tumor wax la yirahdo oo kale inuu maskaxda qof kasoo baxda baa kamid ah waxaa kamid ah dadka sokorta qaba iyagana waxaa arkaysaa dad sokor qabo oo farahoodii far dhan ay ka harayso ama kasoo jabayso ama go-ayso mana oga waxaas waxa weeyaan sokorta oo aada u sareysa sokorta jirka aada u sareysa waa neerfayaashii dilaysa neerfihii markay disho dareen ma yeelanayo jirkii marka qofki meeshaas waa go-aysaa ama lugta iska soo haraysaa ama fartaas way jabaysaa oo kaleba oo kale weeye waxaa kamid ah in salalka jirka uu ka samaysan yahay ama jirka laga formaat garaysma in iyaguna ay cudurro ku dhacaan maxaa kaloo kamid ah waxaa kamid a qofka in fitamiin la-aan ay ku dhacdo fitamiinada qaarkood markii qofku ay ka dhamaadaan iyadana saasoo kale kabuubyo iyo waxbuu dareemayaa ama in qodaxa lagu mudmudayo sida especially fitamiinkan la yirahdo vitamin b2 alifka baa kamid ah maxaa kaloo kamid ah qofka maxaan ku rahdaye inuu spinalka ama laftaas dheer inay maaragtay jug ka gaarto ama inta meel kasoo dhaco xangulaha kala go xangulahan dheer oo maskaxda ka yimaada ama maxaa la yirahdaa spinal cord baa la yirahdaa xariga dheer inuu maxaa ku rahdaa kala go ama dareenkii ka tago marka wax tiro badan baa keena hadday kabuubyadu kugu badan tahay baliis
dhakhtar la kaasho, sababtoo ah waxaa keeni kara boqol cudur oo qofku fududeysan kara baa keeni kara. middan caadiga ee qofku markuu daalo ama habeenkii uu la soo kaco gacan aadan qaadi karin oo kale, isla markii dhiigga markuu jirka gaaro ay soo noqonayso oo kale, laa mushkila, wax dhiba male. haddaba diagnose and treatment maxaa lagu baaraa ama qofka lagu ogaan karaa laguna daaweyn karaa? only waxaa lagu daaweyn karaa koobyada iyadoo la ogaado waxa keenay, physical examination wax la yirahdo, ama korkaaga oo dhan dhakhtar baa u tagaysaa, madaxa ilaa lugaha lagaa baarayaa haddii koobyada kugu badatay, wixii keenaa marka la weydiinayaa. medical history waxaa la fiirinayaa maxaa daaweyn baa cunto. daawooyinka qaarkood waa keenaan qofka waxay ka dhigan qof oo aan dareemeyn hadduu daawooyinka iska badsho ama daraag overdose u isticmaalo. maxaa kaloo kamid a environmentalka, haddii uu kuleyl yahay ama hadduu qabow yahay, oo waxaan hadda sheegayna way saameyn kartaa koobiyo badan ama qodxo ku madmadaya, markaasna meesha xaaladda lagaa bedelayaa. maxaa kaloo keeni kara inuu qofku shaqo badan qabto oo gacmihiisa ay koobiyo noqdaan ama biro waaweyn ama wax culus u qaado, iyadana waxaasaa laga bedelayaa. maxaa kaloo kamid qofku inuu sokor qabo, sokortu way keentaa dareen la-aanta ama lugaha ama waxoo dhan saas kaa noqdaan baa keeni karta. maxaa iyadana la sameynayaa, sokortiibaa lagaa daaweynayaa, waa inaad dhakhtar iyadana aada la socotid. maxaa kaloo keeni kara in fitamiinada kugu yaryihiin, hadday kugu yaryihiin ama fitamiinada keena dareen la-aanta, waa in maxaa ku rahda iyadana fitamiinada kor loo soo qaado si xaaladaada loola socdo. maxaa kaloo kamid a in circulationka ama nerf la fiiriyo makalooti maxinjira ku jira jirkaaga, markaasna iyadana flashin baa lagu sameynaya ama dhakhtarka ku shaqada leh baa hawshaas iyadana waxaynaya. maxaa kaloo kamid a in keliyaha iyo maxaa ku rahdaa beerkaaga iyaguna shaqadooda ay gaabantay ama ay hoosooso, iyagana dhakhaatiirta ku shuqulka leh baa markaas wuxuun daawo kaa siinaya. maxaa kaloo kamid ah in neerfayaashaadu ay dhaawacan yihiin. maxaa lagu ogaan karaa? MRA bahalka kan la yirahdo, ama dadku ay isku fiiriyaan, ama CT scan badanaa waxaa ka fiican MRA-ga neerfaha, maadaama aada u yaryaryihiin isagaa si fiican u arka. marka kuwaas in lagu fiiriyo. intaasaan kusoo koobaynaa asxaabta ogbaad. haddii aad qof buuran tahay ama qof miisaankiisu culus yahay, badanaa 2 saac ka badan meelaha fariisan oo socsoco, cudurada noocaasna aad bay u khatar badan, iska ilaali fadhiga badan, musqusha inta badan la fariisto, fadhiga faraha badan oo 2 saac ama ilaa 3 saac fadhidid kulli, xataa hadaad iska waran qofka skor buu ka qaadayaa. asxaabta ogbaad like iyo share, soo dhawaada, waadna mahadsantihiin, aad baad kulligan u mahadsantihiin.